الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإسلام waxaynu dhowr jumca ka soo hadalnay akhlaaqdiiyo dhaqanka wanaagsan ee qofka muslimka laga doonayo waxaan ka soo hadalnay inay tahay marka ugu horeysa akhlaaqda wanaagsani kow inay ka tahay in dhibkaaga af iyo adinba laga nabadgalo oo aadamaha ay ka nabadgalaan gaar ahaan islaam dadka muslimiinta afkaaga inay ka nabadgalaan adinkaagana ka nabadgalaan waxaan ka soo hadalnay tusaalayaal dhowr ah maanta iyo maalmo dambe waxaynu ka hadli doonaa qaybta labaad marka dhibkaaga iyo shartaada ummadda aad ka dayso in wanaagaaga iyo khayrkaaga la helo maanta hal tusaalaynu soo qaadan doonaayo ereyga wanaagsana aadamuhu mar kastaba waa inuu hadlaa dadka waa inuu la macaamilaa wuxuu doonaya sheegaa marna waa xanaaqaa marna caadi buu noqdaa marna waa la dulmiyaa marna lama dulmiyo duruufo iyo xaalado kala duwan buu maraa laakiin dadkii aadamihii mar walba waa la macaamilaya haddii la yidhi afxumada iska daa caytanka iska ilaali dadka inaad durtood hamzi iyo lamzi ku samaysa iyo xanti iyo iska ilaali dadka war ha u kala qaadinoo ha isku dirin intaasoo dhan haddii loo diiday waxaa la yidhi erey horta marka u horaysa erey wanaagsan dheh markaad dadka la hadlayso markaad qof u yeedhayso erey wanaagsan dheh magaciisa ka wanaagsan ugu yeedh bisa lismu lfusuuqu bacda aliimaani magaci xun ka daa wuxuu dhibsanaya ka daa erey wanaagsan dheh markaad wax u sheegayso si tartiiboo wanaagsan ugu sheeg erey wanaagsan inaad doorato kelimad dabacsan oo wanaagsanna dadka ku tiraahdo baa kitaabka iyo sunnadu ina wada fareen waata la doonayo inaynu ilmaha guryaha ku barro oo ilmuhu guriga marka uu joogo ereyga wanaagsan la baro waa midda la doonayo iskuulladeenna iyo dugsiyadeenna maada la dhiga ardaydana la bara inay noqoto ereyga wanaagsan inuu yidhaahdo ardayga markuu la dhaqmayo macallin iyo maamul markuu joogo magaalo iyo suuq markuu joogo guriga iyo goobaha waxbarashadu waa meelo u baahan ereyga wanaagsan ilmaha in la baro si loo baro ilmaha erey wanaagsan waa in lagula hadlaa ilmuhu wuxuu koobiyeeyaa wixii isaga lagu yiraa waxaad ku celcelisana adna marka dambe waa ku yidhaahdaa ereyga wanaagsan waalidku waa inuu doortaa si ilmuhu ay dhagaha uga maqlaan markay baranayaanna ereyga wanaagsan saa dheh waa in la yiraa ka xunna daan la yiraa sidoo kale iskuulku macallimiintu waa inay ereyga wanaagsan dhahaan maamulku waa inuu ereyga wanaagsan yidhaahdaa ardaydana waa in la baraa ereyga wanaagsan iyo iyaga dhexdooda waa loo adkaysan karaa ilmaha yar iyo ardayga inta hore iminkiya hadduu baranaya laakiin oday iyo waayeel gaboobay oo aabbiyo hooyaa oo afxuma uun hadal ka yaqaan ereygana inta xun un ka yidhaahda baan wax la aqbali kara ahayn intaana islaam oo islaam ku dhex jira ilaahay wuxuuna baray subxaana wa tacaala kelimada wanaagsan aakhariya adduunba iyadaa lagu liibaanaa ilaahay agtiisa haddaad rabta inaad waxgeysato ilayhi yascadu lkalimu ayibu waalcamalu saalixu yarfacu kelimada wanaagsan alla xaggiisay aadaaya waa la kor yeelaa laakiin waxaa qaada waalcamalu saalixu baa qaada erey wafka laga yidhi dhaqankuna xun yahay ma aha assalaamu calaykum aad dilaysa ma aha khayr allaha ku siiyo aad dhibtiisa ka shaqaynaysana ma aha waa erey wanaagsan oo qalbi ka soo baxay wey waa erey wanaagsan oo sida loo yidhi dhaqankiina raacsan yahay wey ilaahay soo inoma dhihin miskiinka tuugsanaya qawlun macruufun wa makfiratun khayrun min sadaqatin yatbacu haada erey wanaagsan inaad ku tiraahdo adoon waxba siin baa kaaga khayr badan intaad wax siiso ha ku go-o alla ku qaadiyo balaaya kugu dhacda inaad tiraahdo waxaa ka khayr badan adoon waxba siinin allaha kuu sahlo allaha kuu fududeeyo dhibta allaha kaa qaado waa inaan ereygiiyo afkeennu ereyga wanaagsan iyo khayrkiiyo ducada barannaa inagu ereyga xun baa inoo badan tusaalaha mar walba la soo qaato waxaa ka mida gaarigii xumaa intaan qaatay
والعيالكي حما قاضي والاسكولكي حما جيي أنا شقدي حميد سي آدي ودوركي إسلامتي حميد قريبا وقيمت فلنتنا أري قلدنا وقلع سنة فيريا وحي نورنا وح وضع حن waxaan sameeynaa wax wada xun oo kii makaaniga ay xumaa baan u geeyay meeshii xumayda shidaalka ay baa ka soo qaatay kuwii xumaa ee bangiga aan lacag kala soo baxay waxa noo dhan al kalima tayyiba ka maqan qofka markaad wax weydiisanayso markaad wax u sheegayso markaad wax kala hadlayso eray wanaagsan oo qulubta fura ka horeysi hebelow khayr allah ku siiye hebelow nin qiimo badan oo odayaad ahayde hebelow waxaas la iska rabaa waxaan wax ka qabanno arintan maxay saa u dhacday warniyow sidan ma baahan jiray saa u dhacday laakiin hadda ka bilowdo waraa tuugiyo waad ka bilaabi waraa tuugiyo waraa ay yahay ku dhalay bal waxaynu noqonay in ayda la isku amaano erayga xun mid doofaar dhalaya oo amaana mid ay dhalaya oo amaana baa inaga dhaqankeena iyo lahjada luqadeena kamida ruuxaas islaamnimo iyo dhaqan wanaagsan ma ilaahay baa wuxuu ina leeyahay erayga wanaagsan ilaahay darajo ku leeyahay laakiin amalkii qaadi lahaa ee toosnaantina waa laga rabaa marka ilaahay wuxuu leeyahay qofka muslimka ah iyo suu manfaca badan yahay iyo erayga wanaagsani baa lagu matalayaa geed weyn oo marna la harsado marna laamihiisa la gurto marna midhihiisa la cuno ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء جيت تاغن ومديه سلا قرانيو لحرصانيو لاميه سلا قوصانيو بكلمة وناكسان لامتا كلمة قلوبتا يسوسو دويسا حتى نرى وناكسان لدهن تدكوا كلا ديدان وحالغان رابا وحدتك يسو دوينيا وحدتك يسو كينيا وحولات النمدية وذاتلك كشقينيا صدقت بإله العلي وحوجي القرآن كيسا إنه أمري وقل لعبادي يقول التي هي أحسن أضمن إذا واحد كنت على أنه حمد أشيكتا إريقا وناكسنها كوها الله إريقا وناكسنها كدورتان محايا علي إريقا وناكسنها دان لديهن مدحن بالدها مدحن هدانا إن الشيطان ينزغ بينهم شيطان كوا اسكو درا إريقا حونة تري ملكة عراد عقدد حماته كلا دمشو إيا كلا تقبو بيرا ولذلك أريق حنا تري قفك كما حرو لكن فعل حوت وسميسيه النظر كله فتي وكبك سدا هذا الكاتريس هذا الكلام بكسده ولذلك سومالي محير هذا دغحنا ميل او كدعا هذا الميل دير بو كدعا adduunka iyo qaaraduhu talaabi laakiin waxa ku tuurtay lugta iyo gacanta meeshu kaga dhacay halka ma dhaafo ereyga wanaagsanna waa sidoo kale qofka qalbigiisu fura marka ilaahay si guud weynoo faray wuxuu yiri waqulu lin-nasi husna wardadka hadal wanaagsan ku dhaha wuxuu ilaahay kale inoo sheegay erey wanaagsan inaad tiraahdo in lagu waafajiyo waa hibe iyo hadiyad rabbi subhanahu wa ta'ala iyo hanuunid ilaahi weeye وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد أريك كيسي وناكسنا بالله نونيي وحي كانت إغانته لغو لمانيي دلاهي حميد كرايا مع السنة شد كيسي يدريقي سبع لغو نونيي نبينا صلى الله عليه وسلم سياد كلمة وناكسنا وقوابيي وحاكم إذا إنو يري والكلمة الطيبة صدقة أريك وناكسنا دات تراضو أجر بابا لغاقا قريو adduunkana manaafic iyo walaaltinimaad ku heli bala iyo shar iyo dagaal iyo colaad iyo dad badan oo ku xuquuq xumaada baad kaga nabadgeli waxa inta ku dheer sadaqaba ilaahay agtiisa lagu qori ajir baad ku leedahay waa marka koobaad ajirka waxa kuugu lamaan naar baa lagaaga badbaadin oo nabi wuxuu yiri ittaqun naar walaw bi shiqqi tamra naarta isaga ilaaliya xoolo iyo sadaqa Allah bana wax kale hadaad weydo hal tibira jeexay sadaqayso hayaraysan فإن لم تجدوا هداد ويدنا فبكلمة طيبة كلمة أري وناكسن سراقايسو تاس نارت إلهي كذا إلاليه عمرو بن عباس وحجري نبي قام ويديه صلى الله عليه وسلم سؤال بدن بويديه استبت شوغ إسلامك إيمانك يا لها وحكم إذا ما الإسلام إسلام حية وحجري نبي عليه السلام طيب الكلام ويطعم الطعام هذا الوناكسن هي حولها ضدك باهن وحكسيس إسلام هو كاس
marar badan buu nabigu fasiray sal ly slam laakiin islaamkii dhannaa mararka qaarkood in lagu fasiro erey wanaagsan iyo dadka baahan oo xoolaha wax ka siisaay ereyga wanaagsan qiimuhu leeyahay bay ku tusi xoola aad siiso iyo erey wanaagsan haddaynan israacin oo iskhilaafaanna aayaddii qur-aankan soo sheegnay qawlun macruufun wa makfiratun khayrun min sadaqatin yatbacuha adan sadaqa iyo wax bixin erey xun la socdo waxaa ka fiican adoon waxba siinin oo erey fiican yidhaahda baa ka wanaagsan oo ka ajir badan tan waa dambaabi xoolahaagina ku dhaafay ajirna mali tanna naarna waa lagaga badbaadin ajirna waa laguu qori naan marka lagaga badbaadiyo sadaqana lagaaga dhigo intee in la eg bay darajaad aakhara lagu helayaa xadiis cali abi malik al-ash'ari laga wariyay yaa nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam jannada waxaa ku yaal uu yiri daaro gudaha markaad joogtana banaanka aad arki banaanka markaad joogtana gudaha aad arki waana daaro adag oo darbiyadoodii wada muraayado dhalaalayo ifaya gudaha iyo dibad baa muuqda saxaabadu way jeclaysteen waxay rasuulka ilaahay oo taayaa iska leh liman hiya yaa rasuul allah meelaha aad ammaantay sheegtay yaa galaya wuxuu yidhi saddex qofkii laga helaa galaya liman ataaba alkalaam qofkii hadalka wanaajiya wa atcama aطacaama cuntada iyo raashinkana masaakiinta wax ka siiya wabaata wannaasu niyaamu dadku markay hurdaana isdhigtaanna isagu ilaahay dartii intuu usoo kaco tukado ka mid noqda kuwa ilaahay yidhi tatajaafa junuubuhum can ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan wa tamcan kuwaa ka mid noqda saddexdaa ninkii isku dara saddexdaas waxaa ugu dhib badan dadka qaar habeenkii ha la soo kaco dadka qaarna waxaa ugu dhib badan raashin iyo sadaqa ha la bixiyo inna ereyga wanaagsan baa ugu dhib badan oo bal dadkeennii eega daayarteennii maxay barataa suuqa maxaa lagu haasaawaa innaga sheekada fadhi ku dirirka maxaan samaynaa inta erey xun haddaad makhaayadaha fadhiisato meelaha lagu sheekaystiye shirarka haddaad tagto inta dhegtaada erey wanaagsan ku dhaca 10 jibbaarkii in xun baa ku dhici haddii la yidhaahdo ilmo yaroo soo koraya ama qof way dhalinyaro iskuuliya meel dhexa dhiganaya haddaabuu baranayaayo waa ilmo yaroo weli ma aqriyaysanin odayaashii aabba iyo hooyada waayeelka ee afxumada laga soo taagay maxaan iyada dhahnaa ilmaha waxaad saaka ku tidhaahdo buu galabta kugu dhahaa ilmaha guriga inaan ku soo barnaa la doonayaa erey wanaagsan dheh inaguna erey wanaagsan aan ku dhahno haddaad ilmihii ay yahow wasaq yahow qurun yahow xaaraan yahow maantao dhan ku hayso cid allaale cidduu arka wuxuu qaadanayaa ilmuhu tusaale waalidkiibaa u ah bannaanka markuu u baxo dadka wasaq yahow iyo qurun yahow buu kaga bilaabi iyo nacallaa ku dhalay waxaan hayn dhihi maayo sababtoo waalidkaa macallin uga war waalid cikroobiy oo ilmo korinaya bal guryaheenna iyo xaafadaheenna markii ilmihii lagu yar xanaaqa dhagayso erey xun mooyeen wax wanaagsanba lama yaqaan ay iyo habaar iyo wax allaale waxun nijaaso ah unbaa waalidkiisa uga soo daadanaya ilmihii sidii bay ku ababaan waxaa lamid ah iskuulladii waxbarashadii waa meesha ilmaha la doonayo in lagu baray ereyga wanaagsan dadka suura macaamili lahaa ee wanaagsanayd kelimaduu dhihi lahaa waa lagu khaldamay wuuna ku khaldami karaa dadka macallin buu la macaamilayaa waalid baa imanaya arday kalaa joogta maamul baa jooga maamulkiiyo macallinkana waxaa laga doonayaa dee ilmaha hadday u sheegaan oo erey wanaagsan dhaha yidhaahdaan iyaguna nijaasada saydhaan dee waxa isleh maaha waxa aniga ii sheegaysay adiguna aadan ku dhaqmaynin aan ku arko maamulku erayada wanaagsan waa inuu ardayda ku dhaca macallimiinta waa in lagu kontaroolo lagu kormeeraa erayo wanaagsan inay yiraahdaan ardaydana waa in la baraa haddii loo baahdana siminaaro gaar iyo tartanno loogu qabtaa alkalima ayiba ereyga wanaagsan mujtamacu waa hagaagi lahaa mujtamacu dhib badan baa yaraan lahaa haddaad aragta garaha iyo xaajada iyo suuqyada markaa marto waxa la isku laynaya mararka qaarkood erey dalab laba aabba wax weerig Soomaali waxay tiri afkaaga oo xun nabadna waa kaa geeya colna wax kaagama taro laakiin maxaa nabad keena erey wanaagsan ereyga wanaagsani qofkii aad wax yeeshay qofkii aad dardartay qofkaad ku istaagtay qofkaad ku qaldantay haddaad tiraahdo raalli ahaw haddaad tiraahdo intaasaa deeqda
dadka inta badan intaasaa deeqda qofku inuu qiro inuu kugu khaldamay adigana ku raalli geliyo walaa kugu khaldamay raalli ahaw garaha iyo xaajooyinka la isu haysto kuwa badan haddaan ereyga wanaagsan baran lahayn waynu kaba badbaadi lahayn qofka qaladka kaa tirsadee fagaare iyo garku geynaya intaad uba timaado walaa waan kugu khaldamay raalli ahaw haddaad tiraahdo intaas diidantee kula xunteed ka warwareegayso baa wax badan ku kallifiyo ku gelin war ereyga wanaagsan aan baranno war ilmaha aan ku tarbiyayno war iskuullada ha loogu dhigo xaafadaha ha lagu dadaalo hooyooyinka seminaara iyo ha loo qabto kulamo iyo muxaadaraad gaara ilmaha markay ku xanaaqaan inaanay caytamin inayna waxun dhihin war waxaan malaa'igta waxaa idiin dheer ka xun ka soo hadalayo malaa'ig baa kuu qori sidoo kale ka wanaagsanna malaa'ig baa kuu qori kii wanaagsanaa ilmahaagii aday berri ku caayayaan haddaad caydo haddaad ammaantood erey wanaagsan dhahdana adigay berri ku ammaanayaan hadday daris u tagaan erey wanaagsan bay ku dhihi haddaad adigay kugu khaldamaan aabbahooyo raalli hawbu ku dhihi adigu maa barti inta uu yar yahay inuu cafwan yidhaahdo inuu raalli haw yidhaahdo intaa waa bari la'da waxaa intaa ugu lamaan erey wanaagsan markaa barto waxaan ka maarminoo raacaya mar walba ilmihii dulqaadku baranaya dadkana in la tixgeliyuu baranaya ereyga wanaagsani waa cinwaan tilmaamaya qofkani waxa uu yahay markaad caytan ku bilowdana qof xuno in la iska celiyo u baahan baa tahay markaad erey wanaagsan ku bilowdana qof wanaagsan oo soo dhaweynayo loo dulqaato u baahan baa tahay ilaah aan ka baqno ajirkaa iyo jannadana aan raadsanno naarta iyo cadaabka iyo dhibka adduunna aynu ka cararno xusnul khuluqi wanaagsanaa aynu tiibul kalaami erey wanaagsan يا الكلمة الطيبة عن كل ذلك إلى وحنا كبر سبحانه وتعالى حق إنه نوصله كلمة ونعكسن يا خير كينا وافتشيه أفكان يأدي كاننا إسلام كبد بعديه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم لمنا رشدنا وعنا من شرور أنفسنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك اللهم من سخطك من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واقم الصلاة